gabadhu si fiican ayay u ogeyd in saaxiibteeda ugu dhow ay ardayda fasalka ku casuumayso safar bilaash ah. Ujeedadeedu waxay ahayd inay hesho fursad ay virus ugu shubto telefoonkeeda kadibna ay lacagta ka xaddo kaarkeeda bangiga. Hase yeeshee ma aysan dooran inay ka shifto saaxiibteed. Taas bedelkeeda waxay si aamusnaan ah u daawatay saaxiibteed oo iska dhigaysa gabar taajirad ah, waxayna ardaydii fasalka u kaxaynaysay goobo kala duwan oo qaali ah si ay ugu adeegto. Asxaabta waa codsi follow isoo dhaha, muuqaal walba aan bilaabo waan dhamaystiri doonaa waa balan. Markii ay aragtay deganaanshaha gabadha, saaxiibteed waxay u qaadatay inay gabadhu wax fikrad ah ka haysan in qof walba uu isticmaalayo lacagteeda, isla markiiba waxay dareentay sharaf iyo faan. Laakiin ma aysan ogeyn inay mar hore ku dhacday dabinkii aargudashada ee ay gabadhu si taxadar leh ugu diyaarisay. Waxaa soo baxday in gabadhu ay dib u soo noolaatay nolosheedii hore. Isla markii uu iskuulku bilowday, saaxiibteed ayaa si kama ah u maqashay telefoon uu aabaheed la hadlayay gabadha, kaas oo ugu soo wareejiyay 10 milyan oo yuan oo qarash nololeed ah. Arrintaas darteed waxay gabadha ugu xanaaqday iska dhigidda qof isduldhigaya, inkastoo ay aad u taajir ahayd. Sidaa darteed waxay bilowday inay iska dhigto gabar taajirad ah oo kasoo jeeda qoys magac leh, waxayna si deeqsinimo leh ugu casuuntay ardaydii fasalka inay safar galaan. Laakiin waxay si qarsoodi ah virus ugu shubtay telefoonka gabadha, waxayna isticmaashay lacagtii gabadha si ay wax ugu iibiso. Kadib markii gabadhu ay ogaatay in qarash kasta iyada laga jarayo, waxay la murantay saaxiibteed. Si kastaba ha ahaatee, qof walba wuxuu u maleeyay in gabadhu ay si ula kac ah u eedeynayso saaxiibteed. Waayo sidee bay saaxiibteed oo taajirad ah u isticmaali kartaa lacagteeda? Xitaa wiilkii ay saaxiibka ahaayeen oo hadiyada ka helay saaxiibteed ayaa gabadha ku canaantay inay masayr awgii dhibaato abuurayso. Iyadoo niyad jabsan, gabadhu waxay qorshaysay inay booliiska wacdo, laakiin saaxiibteed ayaa ku siftay inay aado saqafka sare ee dhismaha, wayna kasoo tuurtay. Dhacdadaas kadib, ardaydii fasalka iyo saaxiibkeed ayaa xitaa marqaati ka furay in gabadhu ay si shil ah usoo dhacday oo ay dhimatay si lama filaan ah ilbiriqsigii xigay. Gabadhii way dib usoo noolaatay, waxayna kusoo laabatay maalintii ay saaxiibteed soo jeedisay inay qof walba safar u kaxayso. Iyadoo daawanaysa saaxiibteed oo si xamaasad leh ugu fidinaysa casuumada, gabadhu way ogolaatay iyadoon wax dareen ah muujin, laakiin waxay si hoose u dhaaratay in noloshan ay ka aarsan doonto oo ay bixin doonto qiimaha falkeedii. Markii ay saaxiibteed aragtay inay safarkii ogolaatay, isla markiiba aad bay u faraxday, waxayna sii dalbatay safar raaxo leh oo qiimihiisu yahay 500 kun oo yuan. Arrintaas darteed, ardaydii fasalka waxay si aad ugu qanceen in saaxiibteed ay tahay gabar taajirad ah oo kasoo jeeda qoys magac leh. Wiilkii ay gabadhu saaxiibka ahaayeen ayaa isna bilaabay inuu si joogto ah isugu jilciyo saaxiibteed. Si kastaba ha ahaatee, markii ay gaareen meeshii loo socday ee la gaaray waqtigii lacag bixinta, saaxiibteed sidii nolosheedii hore oo kale waxay cudurdaar ka dhigatay in telefoonkeedu uu dab ka dhamaaday, waxayna rabtay inay telefoonka gabadha amaahato. Laakiin gabadhii oo si fiican u diyaar garowday ayaa isla markiiba iska dhigtay qof argagaxsan oo tiri waxay telefoonkeedii kaga soo tagtay diyaaradda. Markii ay taas maqashay, saaxiibteed isla markiiba way argagaxday, waxayna weydiisay sidee bay telefoonkeeda ku iloobi kartaa. Ardaydii fasalka ee ag joogtay ayaa iyaguna ku qoslay gabadha, iyagoo u malaynaya inay si ula kac ah usoo qaadan weyday telefoonkeeda cabsi ay ka qabto in lacag laga rabo. Nasiib wanaag, shaqaalihii madaarka ayaa marqaati furay oo yiri telefoonka waxaa lagu heli karaa 1 saac gudahood. Sidaas darteed qof walba wuu joojiyay murankii. Wiilkii saaxiibka la ahaa ayaa si xamaasad leh telefoonkiisa usoo bixiyay si ay saaxiibteed u isticmaasho. Iyadoo aan wax kale u furanayn, saaxiibteed waxay ku ducaysatay in wiilka saaxiibka la ah uu haysto 500 kun oo yuan. Marka hore waxay virus ku shubtay telefoonkiisa, wayna bixisay lacagtii. Isla markii ay dhamaysayba, wiilkii saaxiibka la ahaa wuxuu helay fariin ogeysiis ah oo sheegaysa in 500 kun oo yuan laga isticmaalay koontadiisa. Part 2 caawa ayaan soo gelinayaa, waa balan ee follow isoo dheh. Muuqaalkana like. Waxay ahayd ilaa ay aragtay in boorsada gabadha uu ku jiro telefoon aan casri ahayn oo aan internet geli karin. Markaas ayay saaxiibteedii niyad jabtay. Waxay garatay in aysan telefoonkeeda ku shubi karin virus si ay lacag uga xaddo kaarka bangigeeda. Haddana waxay iska dhigtay inay tahay dhaxal suga taajirad ah oo ay ardaydii fasalka u qaaday dukaan qaali ah, kuna kharash garaysay in ka badan 5 milyan oo yuan si ay uga hortagto in qof walba ogaado aqoonsigeeda dhabta ah. Saaxiibteed waxay si aamusnaan ah ugu sheegi kartay ardayda ay isku fasalka yihiin in hal mar ay ku garan karto in dhammaan alaabta dukaankan ay been abuur yihiin. Waxayna ka codsatay inay soo celiyaan dhammaan alaabtii, iyadoo u ballan qaaday inay hadhow